بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. ودرسيني صدن إلحاد الدروستي تفسير كقرآن كريم كمدة نوغا بلابنا يا آيات اللبا بقل إلباتن السقالات من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. فلا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. درسيني صدن إلحاد دروستي تفسير كقرآن كريم كمدة نوغا بلابنا يا آيات اللباتن السقالات من سورة البقرة. قال تعالى إلهي وحويري الطلاق فرينكي وننكا هوينتيسي او فرو او رجعيه او كيشو مرتان واللبا غور لبا دلقادود فامساك مركا هيسشو مركا كدي بمعروف وناك او كهيست أو تصريح أما السوفين بإحسان ولاك وكفسوفي أي أهري أو لي هيوانك أسقناده. ولا يحل لكم إذن محلال أهرقوا أن تأخذوا إنات قادتان مما كي حقي سآتيتموهن آدمر كي سيسين حاسسكين شيئا شيء مهركي يوحى سيسين وحينات كقادتان حلال إذن ما أهن إلا أن يخافا إنيك عبصدان أمهن ninkii naagta isqabay way alla yuqiima inaysan oogin xuduud Allah ilaahi xuduudiisa oo sharciga Allah ee dhaqan wanaagsan amarka ah ay ku dhaqmi waayaan ay malaystaan oo naagta xaqeedana ciladu ka timaado oo furinku ay saa ku dalabatay madax furasho dhiibto falaa junaaha calayhima ninkii naagta korkooda dambi ma ahan fiima shay dhaxdiis iftadat bihi ayadoo ay madaxeeda ku furatay oo isku madax furatay tilka ta xuduudullah ilaahi xuduudiisi uu dhigay waaye falaa ta'taduha had gudbina oo ka talaabina. ومن يتعدى قفك كقدب حدود الله إلى حدوديس فأولئك كواس هم أيقوا الظالمون دلملو يالواي ظالمين واي. وحنقول جرنا سورة البقرة قيب سورة دايان مريني أحكام أي سورة كار ليس أنت بدل ما دام أي مدني تهي كارهان أحكام تكسابسن جور كي فرينك أيان كده حجرني آيات قدام بدرس جين هو وحنقول سوق هذا ناي فرينك يا رميسي كارهان هويني ذا لفري دلاق يدون مركولي برجعيه هي مضلقة إذا ترسي جيد قاب كي وعدة ترسنا
tirsanayso haweenka markii la furana cidda tirsigiisu waa kala duwan yihiin oo qaar bilay ku cidda tirsadaan qaarna qur'i iyo maaragtay xaydkii duhriga ku cidda tirsadaan qaarna waxay ku cidda tirsadaan marka waxa waaye biwadci alxamli uurka inay dhigto qaarkood ciddaba lagu male marka way kala baxaan oo mudallaqaadku way kala duwan yihiin midda daatul aqraa ah ee lala aqalgalay haweeneydu ninku uu la aqalgalay xayd miduu ku dhacana ah taa ciddadeedii aayad ka hadlaysa ayaan soo qaadanay oo waxaa la yidhi halaathata quru'in qur'igana ma tuhriya mase waa xayd labada macnaba luqada waa ku yimaadaa laakiin kee aayadda hadda loola jeeday marka ahlucilmigu labada qolba ay sheegeen duhriga inuu yahayna xoogaa yar xoog badan tahay waxaa la yidhi marka hadda idinma xalaal ahaana inaad qarisaan haweenkii waxa calooshiina ku jiro ama xayd ama awlaad ah oo uur ah inaad qarisaan maxaa yeelay axkaam ayaa ku tacalluqaysa waxaa la yidhi raggooda ku xaq la soo ceshashadooda haddii ay wanaag rabaan inta ciddada ay ku jirto isoo ciddada dhammaanin dumarkuna waxay xaq u leeyihiin waxa ayaga lagu leeyaho kale oo wanaaga ay leeyihiin aayad u dambaysa casharkeena hore aan kusoo qaadanay weli aayaadka madka darsigeena maanta aan ku galayna waxay ka hadlayaan ayagana furiinka iyo axkaamtiisii rabbi subxaanahu watacaala wuxuuna leeyahay dalaaqa uu ninku hanti karo inuu haweentiisii soo ceshado marataani waa laba dalqadood waa laba dalaq oo haddeentu mar uu furay haddana kadib mar kale ayuu furay marka waa sidaas sida sunnada waa inuu hal dalqa wax ku furo ciddadeedu marka intay ku jirtaa haddii ay wanaag iyo nolol fiican inuu ku noolaadaan ay isla gartaan oo isaguna dareemo saa aaminsan yahay xaq wuxuu leeyahay inuu soo ceshto asagii waay biduuni ridaha xataa haddana mar kale dalqa kale uu ku furo kadib uu soo ceshto laba markay joogto marka waxa uu leeyahay laba dariiq un mid in laga helo waaye midda hadda muumana waa dalqadii saddexaad fa imsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan inuu wanaag iyo nolol wanaagsan iyo fiicnaasho iyo ciladii oo baxdo zuushay dhaqan wanaagsan uu ku haysto wa imaa inuu dalqadii thaalidka ahayd tasriixun biixsaan la yimaado sagootiyo si wanaagsan oo qurux badanna ku sagootiyo oo meherkeedii iyo waxeedii iyo nidaamkeedii asluubtaas nidaamka uu maro iyo mutcahadii uu leeyahay dhammaan si nidaamsan oo u maro oo saa ku sagootiyo maxaa yeelay islaamku mar walba wuxuu amraa wanaaga inuu taagnaado xumaan iyo isjiijiid iyo kala carar iyo kala doodood midnaba lama ogola sidoo kale aayadda waxaa looga hadla qaybaheeda dambe haddana arrin ku saabsan khulci waa furiinkii lamida laakiin haddana si uga duwan waxaa la yidhi marka haweenkii haddii marka ninku sidaa haweenta ku furo ee asaga uu iska naco ama dooda xaggiisu ay ka socoto oo ayadu wax dooda hadday dhiba gaara aysan qabin haba iskhilaafan hadday doonaan laakiin furitaanka asaga iyo go-aankiisu ay tahay waxaa la yidhi wixii aad siiseen oo meherkeedu xuquuqdeeda lahaydeen hal xaba inaad ka qaadataan idinma xalaal ah wixii faraad ka saaraysaan xaalad marka waxaa jirta loo ogolyaa la yidhaha khulci oo haweeneyduna ayadu ismadax furata ah waana marka ay ninkee naagtu ay shiqaaq dhexdoodu dhaco ay nolosha u suurageli weyso haweeneyduna ay dhibsato jeclaysatana iyadoona hadda cillad weyn oo ay ninkan ku dacwaysa aysan jirin la noolaashadiisu ay dhibsato taana marka ay ku codsato ay tidhaahda inaan la noolaado waxaan ka baqaa inaan ku dambaabo oon dhib iyo faraaqa iga timaado saa daraaddeed madax furasho markana iyaduna dhiibto ay tidhaahdo meherkii uu siiyey kama rabe asagayaan siinaha madaxayga ma siinaa marka waa ay khulci la timaado ama ay tidhaa intaasaan siinaha iska kay furo ay khulci la timaado furiinka marka sidaas ku yimaada oo dalabka noocaas ku yimaada oo haweenta xaggeeda saas uga yimaada xuduudda alle inay ogaana ay ka baqayaan oo ay maaragtay arrintu adag tahay marka ilaahay wuxuu yidhi waxa ay isku furato haweenaydu ninkuna ka aqbalo dembi korkooda ma ahaanin ama hadduu asagu meermeero si ay ayadu isu madax furato ee uu dhibaateeyo taa lama ogolo mana u banaana wixii uu qaatana wax xalaala u naqan maayaan aayadda soo socotaana taa noo tilmaami doono walaa tumsikuuhunna marka mujeeda diraaran dhib iyo culays iyo inaad ayagu dhibaataysaan ha u haynina ilaa aad ku qasabtaan inay ismadax furato taa lama ogola marka iyadoo dhaqan u ogol oo raalli oo wanaagsan asaga marka inuu dhaqdo haddii uu nacayna uu si nabadoo wanaagsan uu isaga furo labadaa dariiqa u furan ee haddii iyadu ay noloshu ay xoogaa diidan tahay isla noolaashadu adkaato mucaasharadu diidmadan xaggeedu ka socoto ciladana ay sheeganayso biduuni cilla iyada laftirkeeda inay iska boodaahay lama ogolo xadiiska saxiixa nabigu wuxuu yidhi haweenaydii furiin dalabta wax dhiba iyadoo aysan qabin iyo baas aysan qabin jannada carabteeda ma udugsato marka haweentu inay furta iska wado wax cilada iyadoo aysan jirinna dembi weyn waaye oo ay ku galayso laakiin marka cillad ay jirto oo noloshu ay suurageli weyso oo ay ninkan waxay ka tabanay ay jiraan haddii ay maaragtay iskala noolaan lahaydna dembi iyo dhibaato iyo rafaad inay gasho ay ka baqayso markaa way dhihi kartaa sidii haweenaydii thaabit ibnu qays oo kale
oo aayadu ay ku soo degatay marka aayadu marka waxay ka hadlaysaa furiinkii iyo ahkaamihiisii iyo khulcigii iyo wax lamida qaala tacaala ilaahi wuxuu yidhi at-talaaqu furitaanka uu ninku awoodo inuu haweentii soo ceshto marataani waa laba goor fa imsaakun marka saddexaad fa imsaakun haysasho un bimacruufin wanaag uu ku haysto aw tasriixun ama soofin uu diro oo dalqadii saddexaad waa biixsaanin wanaag uu ku diro taas labadaasaa furan haddii laba mar ay dhacday marka saddexaad labadan dariiq mid in la maro waa ilaahi yidhi imsaakun bimacruuf wanaag inuu wax ku haysto haweentii ceshto la noolaado ciladii meesha ay ka baxdo dhalal wanaagsan lagu noolaado aw tasriixun biixsaan ama wanaag inuu ku sagootiyo ولا يحل لكم ورغوا إذن ما حلال أيو إلهي سبحانه وتعالى أن تأخذوا إن قادتان مما كي حقيسة آتيتموهن آتسيسان حوينك واحد سيسان ومهرك إن قادتان حلال إذن ما أهان أيضا مركا لقصبايو ولا درقينايو قادتان هذه أيضا مركا رالي أو ماركتي أيضا ماركتي أي أسو قراتي أو وح وليس أي سنجرين أي تلا أنيقا كسيما وكوي عفيي واحد يوم ملا هواي مركا آيات سورة النساء وتجدون ناتاس وهذا هواي عن طيب نفس waxa ay ku bixiso ayadoo raali oo dirq iyo midna toogma toog midna aysan jirin wax dhibaato ma lahan ama hadee marka muujada inuu asagu yiraahdo kisti si oo lacag intaas si markaas aan ku fura ayadoo dhaqan diyaar u taysan waxba diidanayn oo yiraahdo marka muujada mana ku dhaqay mana ku dhigay inaan ku dhigaa dad rabto intaas si hada taa waxa way wax ciladan aysan jirin oo ayada xageedo dalabka uu ka imaanin wala marka ha qaadanina leeyahay idin ma xalaal ah hal xaalad ay u xalaal taa jirto waa taraafa in khiftum hadal cabsataan allah yuqiima ninkii naagta inay oogi waayaan حدود الله إلى حدوديسي ونك ناقت هذا إسقابا وناق إخير إن إسقولنا ولا أنا للربي وين تهدين كذي نعيسى أما الدبي عادي يكون عادي أما موقال كيسي موقال أهاني قاب أهان تيسي نعادي وح إلا ذوكلو وين وأي تلمام يساهين مجران سواها يرير كامرك أي نعادي أيضا درتيد أو لبضو أي مرك ليان إن أي ماركتي وفي ويان وح حقوق لقولها يوميد والمدك الحق كله يهي هذا قرار حريرين يوناك بدنا نحيا لا أرنتا هدي لقى عبصدو أوليادو إن أرمها حقوق الزوجين كإن لو استاجل لقى عبصدو إلى يحوري فلا جن أو هوانت حقيقة علته كسر عتواي فلا جناح دم عليه ما إن كان ناقت كركولا ما أهانين وناقتني ديبتنا كدم باب ما إن كان وقعتنا كدم باب ما هو فيما شيء افتدت به يسكم مدح فرتي تلك تعالى إذن شيء حدود الله إلى حدود سواي فلا تعتدوها كحد قد بنا ومن يتعدى قفك كحد قد بحدود الله إلى حدود فأولئك كواسهم الظالمون الظلم لو يالواي آيات غيبت دم مركب حكال ليس وح ليرادو مركب غيبت ورا آيات حكال ليس في أمر الجاهلية مركب ورا عربتي دقن كود وحو أسكاها دلاق حد بأمانهين نك مركب ورا ناقت أسكفورا وسوء شنا أنت بعدد كجرتو أساء حق لإنه سوء شدو وقل جربه دونها فوري معنى حد ay dalaaq baa in la yiraahdo oo ku yimaado ma jirin marka hore ayadana marka soo dagatay oo dalaaqi ku goysay saddex dalqadood laba mar ayaa jaanis haysataa inaad soo ceshato marka saddexaad dalqada saddexaad oo ku dhiman inaad wanaag iyo nolol fiican ku haysato iyo inaad si nabada oo wanaagsan ku sugootiso wax u dhaxeeyo la laaba sharciga ilaahay ma ogola ayadana wali rasuul waxa lagu sheegay niman reer ansaareed kamid ah carabti kamid ah ayaa waxa weynaydiisii asagu xoogaa inta qalaab dhaxmaray wuxuu yiri garoobna ka dhigi maayo naagnin lana ka dhigi maayo yiri inta u dhaxaysan ku geeyna oo say ku suura galay waa ku furaa wiil marka cidada dhamaarabtana waa ku soo celina waa ku furaa marka cidada dhamaatana waa ku soo celina amaala nihaaya waa marka dalqaduna ma xadeysnayn ayadana rabbi soo dajiyay subhanahu wa ta'ala xadaaba loo yeelayba laba mar asaas yeeli kartaa leeyahay marka saddexaadna waa ku dhamaatay ciishi dambaba kuma furra halkaasay kaaga nabad galaysaa maxay islaamku waa cadaalad in cid la dulmiyaahina ma ogola sidaas way marka taasa ka soo dagatay waxa timid marka marar qaar kood haweenkii ninkii oo dhaqan diyaar u ah wanaagsan in haweenta iyadu marka xageeda xoogaa ninkii ay iska nacdo ama dabeecad ay ku nacaysaa dhaqan iyo dabeecad ama muuqaal iyo maaragtay waxa ay ku nacday laakiin cilad kale xuquuq gudasho la'aan iyo arrimahaas aysan sheeganayn waxay xaq u leedahay mii soo saari kartaan aysan wadin saa haday timaado waxa way inay iyadu marka la tartiibkeeda inta la heshiiso madax furasho ay siiso hada sharcigu uma diidin asagana uu ka aqbalo hadii la isla garto wanaaga mar walba la rabaa wax dhibaato ma lahan ayaa la yiri qaybta dambana waxa la yiraahdaa sabab nusul ayaa la yiraahdo Thabit ibn Qays saxaabi la yiraahdo ayaa haweenay qabay oo reer ansaareeda markaas ay nabigu timid sallallahu alayhi wa sallam markaas tii ninkan Thabida diin iyo dabeec midna waxay tiri ku nicmaayo oo ku eedayn maayo ku ceebayn maayo diin laawo ay dhihi maayo dabeecad laawo ay dhihi maayo cadaaladda waa sida haweentu marka runta ay sheegtay laalaab maba aysan gelin say rabtan way sheegtay sharcigu marka waa u fuudeeyo ilaahay subhanahu wa ta'ala daacadnimadeedii waa ku guuleeyay marka waxay tiri ninkaas diin iyo dabeecad mid aan ku eedaynayo haba yaraatee ma jirto laakiin waxaan ka baqahay tiri anigu inaan abaal dhaan naqdo oo anigoo muslim ah oo gabar haween muslimada alla ka baqaysa
waajibkayga inaan guda waayo maxaa yeelay ninkaan xoogaa waa kuma aan kalsooni maxaa ku dhacdaa leeyni marka riwaayada kale xadiidka cadeynayaan xoogaa muujinayo fil dar ayay yar xoogaa ku sheegatay oo waxay tiri marka maalin maalmaha kamida asaga yar kale isla socda ayay meel kore uga jeeday oo soo wada socda markaas uu ahaa asaga naqdo tiri ninka ugu gaaban ugu waji fil daran ugu madow marka waxay tiri isma keenayno xoogaa yar maaragtay fil daradaas ayaan ku dhibsaday marka waxa way niyadeydii kuma aysan qanacsana waana isqabeen marka hadda waxay leedahay arma xoogaa aan xuquuqdiisii gudan waaya oo dambi meesha iga soo gaaraa oo abaaldaan aan naqdaa ninka wanaag iyo sharafta uu sameeynayo aan guda waaya alla yuqiima xuduud allah soomaha marka waana haweentii loola jeedaa waxa marka sida u baqaaya marka waxay tiri saa daraadeed waxaan rabaa in maaragtay ninkaan aanan u sii gool galino aan meesha isku macsalaameeyno oo madaxaygu uu siiyo codsigaas ay la timid beena asaga kama sheegin lama rabo marka inay moogtay dacwo aan jirin oo beena si ay warkeeda loo maqashiyo way dilaaye kanu yeelay bil ima siiye iyo waxba maaragtay raganimadiisu eber waaye iyo dacwo aan jirin oo ay marka ay rabto kaliya un madaxa inay ku hesho arimahaas waxa uga wanaagsan in runta ay ka abaarto gabadha marka runta ay ka abaartay wanaaga ayayna tilmaantay oo ninka diin iyo dabeec midna inaysan ku haysan oo dhanka uu ka fiican yahay sheegtay laakiin xoogaa nafsad ahaan in maaragtay ay ka baqda iyadu maadaama xoogaa qalbigeedu wax taabteen in ay maaragtay xuquuqdii gudan weyso marka jeclaysatay wanaag in lagu kala baxo rasuulka marka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri warbal ka waran xooleyga wuxuu ugu qiimo badnaay ayadaan basiiyay yiri markaasaa nabigu yiri beertiisa ma u soo celinaa beer weyn oo aad u qaalisan ayuu meher ahaan u siiyay ayadoo siiyay nabigu wuxuu beertiisii ma u celinaysaa markaasay tiri ha beerta nabigu wuxuu beertaada qaado iskana furo marka ayadu adu mid kale ku rabtaa iska helay ayadoo mid kale iska helaysaa beertaadina ka qaado ka soo cisho ayadoo madaxeeda iska daa marka sida intaas dhibi lahaayeen waana aqbalay ninkii oo beerti sida ayuu uga qaatay ayadana marka madaxeeda ayuu siiyay khulcigii waa marka ugu horeeyo islaamka soo dhaxgalay marka waka hadii haweenka xageeda ka timid way ama ninkii aba wuxuu jeclaystay naagta inuu iska furo ma raboonin hadda adigay ka timid markaas wuxuu wara meermeeraha inta ka baxa si uu lacagtina u helo wixii ama oo ayada lacag uga qaado furiina uu yimaado oo wuxuu asaga rabo uu gaaro taa ayada lama ogolo ayad soo socota diidi doonta ninkii inuu maaragta dhaqan darro iyo qaab darro u yimaado waxa laalama uu saqaadan markaasi way iyo naagtu inay maaragta wax cilada aysan jirin gabadhan in cilada sheegtay oo xoogaa inay maaragta muuq ahaan ay ninka ku nacday ama dabeecad ahaan ay wax ku nacayso isla markaana adeertaan hadii ay wada noolaasho ay galaan ay ayadu ka baqayso in xuduudi iyo sharciga iyo waajibaadka iyo xuquuqdu kula ay oofin weyso ayadoo xoogaa qalbi jabkaas qabtay marka waxay ka baqaysaa inay hadda dambaawdo ay ka baqaysaa cudurdaarka ay cilada ay la timid gabadhaasi saasa marka ayada loogu ogolaaday miduuni cudrin wax cilada iyo wax cudura midna ayadoo gabadha aanan sheegaynin furiinka inay iska dalabtaahi waxa la yiri jannada carafteeda ma helayso ayaa nabigu yiri marka sallallahu alayhi wa sallam qatar waaya marka haweenku ifurtaan una xooga ka dhigtaan oo iska wataan waa inay iska dhaafaan oo iska ilaaliyaan marka mujada ilaa in cudurdaar weyn oo culus uu jiro un ma ahane wa الطلاق فرتانك مرتان ولا بقور فإمساك هيسشو بمعروف وناك وكيست أو تصريح أما السوف بإحسان وناك وكسوفي مركع كذا بيسوا دلقدي سدحات ولا يحل لكم إذن حلال معهن أن تأخذوا إنات قادتان مما آتيتموهن هوينك وحسيسين حق هذا شيء إنات قادتان إلا أن يخافا إنك عبصدان معنا إنك ناكت إسقبي الله يقيم إني سن أوجن حدود الله إلى حدود ديسي وين يدو أي كقبصته حقوق دي واجبات كلها إني أوفين ويسو مركا oo cilad ay jirto fa in khiftum madad absatan Allah yuqima inay oogi waayaan ninka naagti xuduud Allah ila xuduudiisi fala junaha dambi alayhi ma ninka naagta korkooda ma aanin fi ma shaygi iftadat bihi ay ayadu isku madax furato khulcigi ah tilka taas xuduudullah ila xuduudiisi wa fala ta'taduha ka gudbina wa man yata'adda xuduud Allah ila xuduudiisi qofka ka tilaaba fa ulaika kuwasi humul zalimuna dul milawiyal wa ولي طلاق يعني وقال شاكينا فإن طلقها نك هدوفر طلقة قدام بيسة أو قدام بيسة أو تصريح بإحسان أنت قدام بيدي أيوفر طلقة سدحات أيوفر فإن طلقها هوانت هدونك كفر طلقة قدام بيسة وهي الله إلا والله صار شاكي فلا تحل له أم حلال أحد من بعد مركا كذب حتى أنت تنكح أيك جورسة زوجا من غيره أسجع عنهن إلى أن كلا إسكيس أسوق جورسته أين إسكيس جورسته فإن طلقها هدي أوفر نك كلا أو أي جورستي فلا جناح عليهما نك ناكت هرئيس صافري كركوده دم بماهن أن يتراجعا إن يسوعشتان هذي شروط يسمرين إن ظن هذي ملينا ينواي أن يقيم إن يوجد دون حدود الله إلى حدوده شلا إلى دقيقة يشين واي كلا تجي هذي دريمان وحشلك كلا تجين إن يحل اسمان وحدود الله يوفين دونان وأنا قاتين اسفهمين هذي تاي مكان واحد مله لكن هذي تاي ما ركتي إسكورير إيو وأنا إسكسر نقيم من والبوسلية حاجة متكان أنت تكون نقطة دان نبكي كعرسو
شلوا كل بواي أرجع ملعانه كو قاضي ما أنت تكون نقطت بلاي قارت وجلي هذا ناكت أسلاه أما نك أسلاه هاي هذا مركا أنا ربنا ليسوا شيء جايو خيانة ده شرعي وما أقول بواي مركا وحالي أن يقيم حدود الله وإن ملاينا يعني يقين سين قلبي قدر الجفي عن كقبان إن حدود الله يوجان ودقن ونحسن كل دقمان أيوة عضد قبوا بلاي يلقوي مايا وتلك تاس حدود الله إلى حدودي سيوجح ذواي يبينها الله وإذن عدينا وحو عدينا حدود داسي لقوم قالوا يعلمون وحجرنا أيوة أيضا وحرب وقاد لا دلاغ بائن كأها نكاح وينتيسي دلغد ودن بيسو سدحات هدي او فرو نكاح عصب كما نكاح سنكرو عدد انتي كدرتا دسومي عشان كرا آيات هورا كو سو شيكتayba ما بسو عشان كرو naagta ninka marka dalaaqadii u dambeysay furay xal ayuuna u baahday ma soo ceshan karo la garaye hada maxaa u imaan karo marka dib dambe maxay isugu heli karaan dhowr qodob markii la soo maro 5 shardi markii laga tilaabo kadib ayay dib dambe isugu guursan karaan ama 6 shardi ba la yiraahdo taasoo koowaad waxay ahayd haweenta uu dalqadii u dambeysay saddexaad ama saddexdii hal mar uu ku wada furay dalqadii saddexaad uu ku furayo tii saddexaad ay qabto waa inay horta ciidadaasi ay dhamaysato ay ka ciida tirsato asaga koow waa shardi koowaad ciidadu ay ka baxday u dhamaato horta markay ciidadeedu go'do si sharci ay ku dhamaato kadib shardiga labaad waa in ay guursataan nin kale waan asaga ahayn biduuni muwaafaqatin bayna ar-rajulayn wa macna labadan heshiis ka dhaxeeya midna iyadoo isan jirin nin iskiis u socdo oo muxallil aan ahayn oo iskiis dhaqan iyo guur doonaya uu guursado waa marka waa midka oo ninka kale uu guursado waa qodobka labaad ninka labaad ee guursaday waa inuu la aqal galaa u gogol galaa u galmooda waa shardiga saddexaad ninkaas hadana iskiis waa inuu soo furaa waa shardiga afaraad inay ka ciida tarsataa ciidadiisa dhamaysataa waa midka shanaad nikaax cusub iyo meher cusub ay ninkan hadana mar kale ugu imaadaa way intaas oo qodob markii la soo maro kadib ay u banaan tahay uu guursan karaa inta in ka sokaysa maya ma guursan karo mana banaana in uu sameesto sheekal ila muxallil oo mid uu hoos takleeshiyo yiraahdo ordurufa jirta urur badan culus wax badan culaysa jire haweenadan bal markan yahow dameersatid oo alamin la soo guri gashid ii soofur waa dhacda dad sameeya waxa nabigu waa lacnada marka midka saas wax u sameeya iyo midka loo sameeyay la'an Allahu al-muhallila wal-muhallala lah kan loo xalilaayo iyo kan xalilaayo labadaba nabigu wuxuu yiri waa lacnadan yihiin lacnada rabbiga ku dhacday وانا انكارين نحريست ربيا لغا فوغيه واي كبيره وين واي wax u soconaya ma ahan maxay guur sax ma lagu yeeshiinina waa guur hada laab ah wax ka ansaxaya iyo wax kala midna ma jiraanba wala ma gal maxay nabigu dhawaayadaha qaar wuxuu ku cabiray at-taysul musta'ar orgay tabal caara orgay ciido in uu ridan u rimiyo ay u soo tabal caara qaadatay oo kale ayuu nabigu ku tilmaamay sallallahu alayhi wa sallam ee guur meeshaasi midna ma yaala la yiri marka waa lama ogolaa inta ninka uu saddex ku furo ilaa in kale iskaad u guursato oo la aqal galo waliba ninka uu meher kaliya dhacay waxba socon maayaan oo la aqal galo oo gogol galo oo u galmoodo kadib marka uu iskiis u furo cida tirsato cidadii ka dhamaysato kadib ay kii hore u soo laaban kartaa hadii ay daan iska leeyihiin hadii kalena marka hadee meel kale ka sakayso ay soo mari karaan aba yaraatay ma jirtaa la leeyahay ayada taas ay noo tilmaamay fa in talaqa ninka weynayda doo furo oo dalqadii saddexaad uu ku furaa laga wadaa marka way fala tahillu lahu ma halal aha hatta tankiha ila ay lahu asaga min bacd marka kadib hatta tankiha ila ay guursato zawjan غيره أسجع عن أهين فإن طلق عنك كلا دي أوفر فلا جناح الذنب عليهما كركو ذا معا مركي عدد لما يسطوه وشو لما توي أن يتراجعا إن يسوسوا لابتان إن ظنا هدي ملينايان أن يقيما إن أوغان حدود الله إلى الحدود ديسي وتلك تاس حدود الله إلى حدود ديسي واي يبينها إلى وعدينا حدود ديسي لقوم قالوا يعلمون وحد أي ربي وعدينا guursigu wuxuu ku nolosha qoyska way ku dhisan tahay wanaag haday adkaatay suura gali weyso in wanaag lagu wada noolaadana dambi ma lahan furiin inuu yimaado labadii midkoodna dambi kuma lahan furiinka inuu dalbo hadii xal asaga loo arkay sidaas marka aayaadka aan ka qaadanayna oo ka fahmayna wali furiinka iyo arimihiisi iyo aayaadka rabbi ugu hadlaayay ayaa inoo dhiman darsigeena kale aan ku sii qaadanayna qaybaha dhiman darsigeena halka inoo joogaada wabillahi tawfiiq subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu إليك والسلام عليكم ورحمة الله